kuwani waa barakacyaal laga soo xulay kaamamka ku yaala duleedka magaalada Baydhabo. waxaa loo qaybinayaa joodariyaal, sijaayado, tarmuusyo, firaash iyo nalalka cadceedda ku shaqeeya. agabkan waxaa ugu deeqay barakacayaasha hay-adda Wamo Relief oo ka shaqeysa arrimaha gargaarka. goobta barakacayaashan loogu qaybinayo agabkan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka, wasiiro ka socda xukuumadda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wakiilka hay-adda Wamo. hadallo kooban oo halkaasi ka jeediyay Aadan Bundiid oo ah wakiilka hay-adda Wamo Relief ayaa ugu horeynba sharaxay hay-adda Wamo qorshayaasheeda ku aadan wax u qabashada barakacayaasha hadda iyo hadhow ee ku nool Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaan u yeelanay inay nagala soo qayb galaan qaaska agabka ah kuwaasina waxaa soo xulay oo keenay wasaaradaha kala socda oo state-ka ah ayagoo lagu soo xulayna criteria ay dawladdu ay leedahay iyo hay-adii oo wada socdo. waad arkaysaan dadka maanta wax loo qaybiyay insha Allah taala. waxaan jecelnahay inaan maartay aan sii qaybino waxyaabo kale iyagoo aan ku saleynayno shuruucda wasaaradda. waxaan leeyahay reer Baydhabo aad baad maartay nadiifa Sheekh Carmi oo ah wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegtay kolay meesha ka hadlaysay inay ku faraxsan tahay hay-addani Wamo Relief in durbaba dadka jilicsan ay noqdaan yoolkeeda. maanta wasaaraddana ay goobjoog ka tahay 100 qof oo ay hay-adda Wamo u qaybinayso gargaarkii ugu horeeyay. hay-adda Wamo Relief and Rehabilitation oo ay runtii hay-ad cusub oo hadda deegaanka ka beertay jeelnantii oo lan qabato bulshada ka dhaqan Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo iyo hadda meelan ku horeeyay shaqo ku bilaabayo marka waliba fadeentan ciidanka mahadnaga hay-adda waliba fadaayan intii bulshada si cadaalad walaalahay adeegayo fuliyayaan iyo la kaalada maamulkii gaar ahaan hay-ado qusayta sida gaar ahaan wasaaradda qusayta sida wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. waliba dareemo kortana inay wasaarado ku warhaay dhammaan xaaladda jirta oo dhabta dadka ka dhaqan degmada Baydhabo iyo guud ahaan Koonfur Galbeed. marka unayna la shaqeeyaan hadhawayni wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Mustafa Xaaji Nuure oo isna halkaasi ka hadlay ayaa hay-adda Wamo Relief waxa uu ku bogaadiyay imaanshaheeda dhow iyo waxqabadkeeda urdanka ah ee markiiba taabagalay. maantana ay u ahaatay inay barakacayaasha u qaybiso agabyo kala duwan kuwaas oo wax ka taraya noloshooda. barnaamijka oo gargaarka dadka la siinayo reer Baydhabo 100 qoys aad iyo aad baan mahadinayaa hay-adda Wamo Relief Organization iyo gudoomiyaha oo aad iyo aad u socodkaamay inuu maaragtay Kismaayo ka soo baxo ilaa Baydhabo si uu hawshadeeda u qabto. waxaan rajeynayaa in hawshiis meesha ku dhaqaanin sida wasiiradda oo habeenka tiri hawshaas inay sii wadaan oo sii balaarisaan degmooyinka Koonfur Galbeed meelaha u baahan inay gaartaan. taasaan rajeynaya insha Allah. محمد aadan waa aad u xilqaamay oo dareemo qaba qofku dareemo qabo wax si fiican uu sameeynaya. 100 qoys oo hadda la siiyay gargaarkan waxaan rajeynayaa isbuuc soo socda mar kale soo socda 200 ama 300 sama 300 soo socda. marka reer Baydhabo xoogaa wax maleena xoogaa waana san doonaan xoogaa waana neefsan doonaan insha Allah taala. gargaarka ilaahay idinkana khayr Allah idin siiyo. gargaar waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdii ugu horeysay ee hay-adda Wamo soo gaarsiiso barakacayaashan oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan deeqdan la siiyay. tanga awalnin ilaahay mahadsantiin hadan ilaahay mahadle ku roon rabbaga ku sugaana isin ku sugaana idana baaha مشاكل يسكرن لا يا مان لا بيرودن لو كبر كده تابسه خير الله السي هذا نسي درموس ديري با جودري معاك وامه اليه افريه طبنكي بقولك بسلام. أنا مجال صفية أحمد محمد قدومي كيا كام دولياش الآمي كيا كاميلا رايوس يعني ميري ما يبان سيد دقائق بركانه ده تصوكم ده جودري
درن باع ترموس سولار توش agabkan ay u qaybisay barakacayaasha hay-adda Wamo Relief ayaa kusoo beegmay xilli ay barakacayaasha baahi weyn u qabeen waxaana la filayaa in hay-addani Wamo ay sii wadi doonto u gargaaridda barakacayaasha tabaalaysan ee ku jira kaamamka ku yaala duleedka magaalada Baydhabo iyadoo Baydhabo duleedkooduna ay ku yaalaan in ka badan 300 oo kaam kuwaasoo ay ku jiraan barakacayaal siyaabo kala duwan uga soo hayaamay deegaanada Koonfur Galbeed.